waa BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee famida magaalooyinka qaar iyo barta internetka aan ku leenahay bbcsomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal saacadda Afrikada bari waa 2:27 Diseembar 2018 qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaal beeleed ka dhacay gobolka Galgaduud ee dalka Soomaaliya. waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan talaaladu way kala duwan yihiin labadan xanuun ku halka laba xanuun baan talaalku way ku sheegay oo susubka iyo furuqa ariga waxa jira isagoo marka la ka talaalo xanuunka sanbabka oo riyo kaliya daawooyinka ay u dhawada dheer waa olole lagu talaalayo xoolaha oo ka bilaabmay deegaanada Somaliland. dadaalo lagu dhexdhexaadinayo jabhadda Oromada ee OLF iyo maamulka Oromiya oo socda. qodobadaas iyo qodobo kale Soomaalida iyo caalamka ku saabsan way noo soo socdaan balse markii hore warkii dunida iyo Macaawiye Maxamed. maasanid Badr. ku-xigeenkii hore ee sirdoonka dalka Shiinaha ayaa lagu riday xukun xabsi daa'im kadib markii lagu helay dambi ah inuu la luush qaatay. maxkamadda ayaa waxay sheegtay in Majian iyo qoyskiisa ay urursadeen in ka badan $20 milyan. sarkaalkan ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta jagada saraakiisay oo loo maxkamadeeyay dacwad musuqmaasuq dalka Shiinaha. dalka Indonesia ayaa sar u qaaday xaaladda feejignaanta kadib markii weli ay sii socdaan qaraxa ka dhashay volkaanaha waxayna buuraha hawada u sii daynayaan qiiq iyo holac. duulimaadka ayaa laga weeciyay hawada jasiiradaha Java iyo Sumatra. toddobaadkii la soo dhaafay duufaanta tsunami ayaa ku dhufatay Indonesia waxaana ku dhintay dad ka badan 400 oo qof. saraakiisha dalka Indonesia waxay ka digeen in volkaan kale halkaasi uu ka qarxi karo waxayna shacabka ugu baaqeen inay u jeestaan dhulka taaga ah oo ka fog dhulka xeebaha. booliska dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sunta dadkii limaysa ku kala eriyay dad dibadbaxyo ka dhigay bariga dalkaasi oo ka caraysnaa go'aanka guddiga doorashooyinka dalkaasi ay dib ugu dhigeen doorashooyin ka dhici lahayd ilaa 3 magaalo. wariyaha BBC ee ku sugan magaalada dhacda bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee Goma ayaa ku soo waramaya in dad dibadbax dhigay la kala eriyay. mas'uuliyiinta dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay sheegeen magaalooyinka qaar oo ka dilaacay cudurka Ebola iyo amni darrada halkaasi ka jirto. siyaasi darteedna aysan wax doorashada halkaasi ka dhici doonin. ugu dambeyntiina madaxa qaramada midoobay ee arrimaha ilaalinta ama la talinta arrimaha xasuuqa ayaa ka digay xaaladda bini'aadanimo oo sii xumaatay gobolka looga hadlo af Ingiriis ee ku yaala dalka Cameroon. Adama Dieng ayaa BBC u sheegay in ciidamada dawladda Cameroon iyo falaagada gobolka afka Faransiiska looga hadlo lagu eedeeyay inay geysteen tacadiye xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha. waxa uu baaqay labada dhinac inay joojiyaan dagaalada. warkii dunida waa nagintaas. Macaawiye Maxamed iyo warkii dunida ayaa degeysanayseen u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacadda duhurnimo. aku bilaabay waxaa istisaasen goosgoosa laga maqlayaa deegaanka lagu magacaabo ka handhaale ee xadka Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan gobolka Galgaduud kadib markii dagaal ay ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen ku dhawaad 20 qof oo halkaasi shalay ka dhacay. dagaalka ayaa dhaxmaray Maleeshiya markaasi beeleedyo halkaasi ku wada sugan. ilaa iyo hadda ma jiro cid kala dhex gashay labada dhinac. waxaa imika khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ugu jiray isla markaas xaaladii ugu dambeeyay halkaasi kala socday Ibrahim Maxamed Aadan. Ibrahim waad mahadsantahay Axmed Badar. inta badan waxaa dadkii shalay ku dhintay dagaalkii ka dhacay deegaanka ku yaala xadka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Galgaduud xadka uu kala wadaago dalka Itoobiya. dad ku dhow 20 qof ayaana dagaalkii shalay ku dhintay. dagaalku shalay wuxuu socday saacado badan 7 aroornimo ilaa galinkii dambe ayuu dagaalkaasi socday wuxuuna istaagay iyadoo cidina aanay kala dhex gelin. dhaawacyada ayaa loo kala qaaday isbitaallo deegaanka ku yaala. ilaa hadda ma jirto cid kala dhex gashay laakiin saakay dadka deegaanka waxay BBC-da u sheegeen in mararka qaar la maqlayay rasaas goosgoosa oo ay dhinacyadu ay ridayaan laakiin ilaa hadda lama soo warin iskahorimaad toosa oo dhinacyada dhex maray. laakiin waxa ay dadka deegaanku sheegayaan in maleeshiyooyinku ay hub urursanayaan saacad kastana laga baqi karo in dagaalku uu dib u bilowdo. dagaalkani dhowr jeer hore ayuu soo laabtay inkastoo markii hore uu sanado qaadan jiray inuu soo laabto. hadda waxaad moodaa in waayadan dambe uu si dhow
deegaanka uga dhacay dhowrkii biloodba in mar intuu dhaco dad badani ay ku hoobanayeen maleeshooyinka beelaha ee halkaasi ku dagaalamaya ayaa ku muransan baraago iyo dhuldaaqsimeed deegaanka ku yaala iyadoo qolada kale ay leedahay iyagaa duulaana ah oo deegaanka annagaa iska leh ilaa haddana cid xal ka gaartay ma jirto xilliyadii hore dhowr jeer waxaa soo farageliyey maamulka deegaanka soomaalida ee dalka Ethiopia xilligii uu Cabdi Maxamed Cumar madaxda ka ahaa laakiin wixii waqtigaa ka dambeeyey ma jirin cid maamulka gobolka Soomaalida ka socotay oo deegaanka timid ama isku hawsheynay arrintan dhex gasho sidaas oo kalena dhinacan kale ee galmudug laftigeeda khilaaf siyaasadeed oo weyn ayaa hareeyay hoggaankeeda taasoo wax badan dib u dhigtay in wax laga qabto colaadda beelaha ee deegaanadaasi kusoo laalaabatay kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Maxamed Anaad iyo maasan yahay waxa uu khadka telefoonka si toos ugu jiray magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya waxyaabaha ka soo kordha dagaal beeleedada ka socda gobolka Galgaduud waxa aad ku maqli doontaan idaacadeena dambe haddii Rabbiga uu dalay uu noo ogolaado imikan haddii aan eegno dalka Ethiopia odayaasha dhaqanka deegaanka Oromiya ayaa jabhadda OLF ee dhawaan la heshiisay dawladda Ethiopia waxa ay kala hadleen amni darro maalmihii dambe gobolkaasi la soo daristay odayaasha ayaa sidoo kale dhawaan waxa ay kulan la yeesheen madaxweynaha deegaanka Oromiya oo kala hadleen isla arrintani haddaba faahfaahinta warkaasi si aan wax badan uga ogaano ayaan goordhow waxaan khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga kula xiriiray wariyaha BBC-da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo arrimahan la socday meediyada deegaanka Oromada ee loo yaqaano abaagadiyowga iyo waliba golaha arrimaha diimaha ee isla deegaankaas oo ka kooban culimada muslimka iyo kuwa kristaanka ayaa waxay la kulmeen hoggaanka sare ee ururka OLF ururkaas oo dhawaan ka soo xorooday waddanka Eritrea isla markaana kamid ah ururadii liiska argixisada baarlamaanka waddanka Ethiopia oo ka qaaday heshiisna la galay waddanka Ethiopia haddaba arrintan ayaa waxay ka dambeysay dhowr maalmood kadib markii odayaashan iyo golahan arrimaha diimuhu ay la kulmeen madaxweynaha dowladda deegaanka Oromiya Lamuna Garsa marka xisbiga deegaanka Oromiya ee loo yaqaano ODP iyo ururka ONLF ay odayaashan maalmahanba u kala dabqaadayeen muxuu yahay dibka jira ee ay odayaashan ugu kala dabqaadayaan ururka OLF iyo maamulka Oromiya Axmed sida la sheegay deegaanka Walaga ayaa khasaare badan maalmahanba ka dhacay ururka UNAG ama ONLF iyo xogo kale oo soo horjeeda oo loo maleeyahay deegaanka Oromiya inay ka tirsan yihiin ay halkaas isku dhacay iskaga hor yimaadeen taasna waxay keentay barakac badan haddaba odayaashan iyo golahan arrimaha diimuhu waxay sheegeen in si degdeg loo joojiyo arrintan barakaca waxaana joojin kara bay dhaheen labada xisbi oo si toos ah isula kulma iyagoo waliba soo qalbifayow waa xisbiga talada deegaanka Oromiya haya ODP iyo ururka ONLF sidoo kale Axmedow madaxa arrimaha reemiga ee xisbiga ODP oo la yiraahdo Adiso Araga ayaa wuxuu sheegay in heshiiskii lala galay ururka ONLF oo shuruudihii caalamiga ah oo dhan buuxiyay isla markaana wax gaar ah oo ururadii kale soo galay aan la gelin uusan jirin oo ururkaas lala galay waan heshiis ixtiraam badan ay siinayaan soo sheegay deegaanka Oromiya laakiin sida uu sheegay ururka OLF mar walba wuxuu ku hayaa guli heshiiskii lala galay xadgudubyo badan taasna waxay garanaysaa in khilaaf badan uu ku kala dhex jiro jabhadda OLF iyo xisbiga talada deegaanka Oromiya haya ODP marka inay u kala qabtaan odayaashan iyo golahan arrimaha diimuhu sababtaas ayaa kaliftay baan isleeyahay waana arrin muuqato oo dadka reer Ethiopia khilaafkaas ka yimid oo la wada socdo inkastoo warbaahinta dawladda aan aad loogu xusin oo aad looga dhexiyay haddana dadku waxay ka warqabaan inuu meesha khasaare badan ka yimid iska hor imaadyo xoogana ay ilaa hadda aan aad loo qabajin ay ka jiraan kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC-da ee magaalada Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo goor sii horeysay khadka telefoonka igu waramaya dhageystayaal ayaa Facebooka ra'yigooda ka soo dhiibtay waxaa kamid ah Mukhtaar Maxamed Iimaan oo jooga Hiil Jacayl ayuu leeyahay haddii aan fikirkayga ka dhiibto maamulka Oromada iyo jabhadda OLF waxaan oran lahaa xilka isaga tageen maamulka Oromada oo ha ku wareejiyeen jabhadda OLF ayuu leeyahay sidii Soomaalida baa looga wareejiyay maamulka hore waxa uu leeyahay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxaan leeyahay la xisaabtamo madaxweynaha Oromada sidii uu la xisaabtamay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayuu leeyahay mahadsanid ayuu leeyahay dhigtaasi waa mahadsan yahay halkaad nagala socotaan waa laabtaabka Soomaaliga ee BBC-da kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com
waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaal bare warbixinadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobilkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com wagaalka dawladda nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee BBC-da imikana hadii aan eego magaalada Hargeysa talaal laga hortagayo xanuunada loo yaqaano sunsunka iyo waliba furuqa ku dhaca ariga ayaa guud ahaan ka bilaabmay jamhuuriyadda iskeeda ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland talaalkaasi oo socon doona muddo 60 cisho ah waxa ka qayb qaadanaya kooxo kala duwan oo isugu jira dhaqaatiir iyo kakalayaal caafimaad dhanka xoolaha ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta ay ka mid tahay wasaaradda ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Somaliland Marwa Yurub Abiib Cabdi wariye Cabdullaahi Jaamac ayaa magaalada Hargeysa ku wareystay Marwa Yurub iyo waliba Dr. Axmed Haybe Warsame oo agaasimaha waaxda caafimaadka wasaaraddaasi waxaana ku hormaraya hadalka Marwa Yurub horta talaalku waxa weeyaan cudurrada ilaahay xoolaha u keeno ayaa laga sii taxadirayaa oo lagu hordagayaa inaanay xoolaha caafimaadkooda la hubinayaa maadaama aynu nahay dad wadamo kale xoolo u dhoofiya isla markaana awoodeena ugu badan aynu haysanay xagga maaragtay ay waxay naga soo galaan dhaqaale ahaan ay tahay xoolaha talaalka waxa lagu daryeelaya xoolaha isla markaana waxa lagu ogaanaya xanuunkooda waxaana jira xanuuno badan oo xoolaha ku dhaco oo laga talaalo si aanay xanuunadaas ugu dhicin haday ugu dhacaan ay safmareeyaan ayaan ugu hortageynaa xanuunada xoolaha waxyeela siyaasadii dawladda anagu fulinayna ka wasaaradda xanaanada xoolaha hadaan nahay ayaan xoolaha ku dhaqaaleynayna kana hortageynaa xanuunada ku dhaca wasaaradda ayaa ka gacansiinaya talaalkan fulintiisa uu kharash badan yahay kulli mid kale waxa ay warar ku sheegayaan in xoolo soo guurto oo tiro badan ay ku soo guureen gobolada bariga Somaliland saadaradeed wasaaraddu ay damacday in ay xoolaha soo guuray haddii xanuun qabaan ana xoolaha kale Somaliland ku soo fidinin arrimahaas maxaa ka jira horta Soomaalidu sidaad og tahay badii xooluhu markay meel abaar ka dhacdo dadku way isku guuraan oo cidina biciliso oo wax weeyaan waa dhaqanagu aynu leenahay oo dawladda kasta hala kala ahaaday haddana mar haddii dhulka abaar ka dhacdo Afrika oo dhan baa isku guurto waaba Soomaaliya marka wax weeyaan dadka haday abaar saameysay ay soo guuraan jooga ma odhanaysin laakiin xoolahooda waa u talaalaysaa oo u daweynaysaa sidaas u bay noqonaysaa waxa naga gacan siinaysa oo nala qabanaysa talaalkan isla markaana kharashkeeda bixinaysa hay'adda FAO Dr. Axmed Haybe Warsame agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ayaa wuxuu isna dhinaciisa ka warramaya xanuunada la talaalayo ku ay yihiin iyo tirada xoolaha la talaalayo iyo kooxaha ka qaybgalaya waxaan ka talaalay nafta talaalku waxa la yiraahdaa waa susunka af Soomaaliga iyo xanuunka la yiraahdo furuqa ariga waxaan talaalaynaa ilaa 3 milyan oo ari ah daaweyntan sameynayna waa ilaa 2 bilyan oo xoolaha dhan isku jira xanuunadii markaan neefka buka daaweyntu waxa weeyaan waa wixii buka waa neefka buka la daweeyaa talaalku waa ka hortigid marka labada dhaagana talaalka iyo daaweynta waxa labada fiican talaalka sababtu waxa weeye ka hortagida xanuunkii ayaa laga sii hortagayaa oo neef si uu difaac uga yeesho daaweynta laakiin waa neefkii soo dhacay oo la daweynayo weey talaal waqtiyaysanba oo waqtiyada qaar qaadaan soo talaal imka u aragteen in xanuun soo socdaan ama shaki galay oo isleeyihiin uu dhici karaa xilligan oo kale cimilada isbedeshay iyo xilligan jilaalka la geliyo hawlahaas oo kale وتلالك الوتلال وقت يسال هذا يقول عليه واحد سندكي waxaan qabanaa hal mar ama laba jeer waxaana weeyaan talaaladu way kala duwan yihiin labadan xanuun ku halka laba xanuun baan talaalku way ku sheegay oo susubka iyo furuqa ariga waxa jira isagoo marka la ka talaalo xanuunka sambabka oo riyo kaliya daaweyntu ay u dhawada dheerto mar walba daaweyntu wala socota waxa weeyaan wax xanuunada hadii hore si degdeg u faafa waqtiyaalo way kacaan mid kale waqtiyaal marka xooluhu hoos u dhacdo awoodoodu ayay inta badan yimaadaan marka waa laga sii hortagaa intee doonaysaa inaad gaadhaan oo beegsataan gobolada Soomaaliya oo dhan baa la wada maraya mise meelaha qaar baad xoog saarsan targetkii waxa weeye ama targetkii waxa weeye 6 gobol waaweynaa hore dalka oo dhan waxa uu baxay 35 tiim gobol kasta gobolka ugu yar 5 tiim buu baxay gobolka ugu badan 7 tiim buu baxay kaasi waxa uu ahaa Dr. Axmed Haybe Warsame oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda
xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda iskada ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland dhageystayaal ayaa Facebook ka soo dhigtay ayagooda Zakariya Maxamed oo ka soo qoray magaalada Burco waxa uu leeyahay Somaliland markasta waxa la talaalaa xoolaha balse wali waxaan isweydiin mudan sababta wadamada Carabta qaar kamid ah ay u diidaan ariga laga keeno Somaliland ayuu leeyahay dhageystaha kale waa Cabdiraxmaan Cali Ciise oo jooga isla magaalada Burco waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa ololahaasi lagu talaalayo xoolaha si caafimaadkooda loo ilaaliyo waana mid loo baahan yahay ayuu leeyahay oo maasniya dhageystahaasi imikana haddii aan sportigi ama ciyaarihii aan eego tababaraha Arsenal Unai Emery ayaa waxa uu raaligelin ka bixiyay kadib markii caag uu laaday uu ku dhacay mid ka mid ah taageerayaasha kooxda Brighton intii ay socotay ciyaartii xalay kusoo gabagabowday 1-1 Emery ayaa waxa uu Spain u dhashay ayaa markiiba u tagay qofkaasi oo caaga uu ku dhacay waxa uu sheegay inuu aad uga yahay arrinkaasi Arsenal ayaa isla lumisay fursadii ayaguna waxa ay lumiyeen fursadii ay dhibca ahaan kula simi kartay Chelsea oo kaalinta afraad ku jirta dhanka kale Liverpool ayaa sii xoojisay hoggaanka horyaalka Ingiriiska oo sii adkeysatay waxaana xalay 4-0 ay uga badisay kooxda Newcastle kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City ayaa looga badiyay 2-1 waxaana hadda hoos ugu soo dhacday kaalinta saddexaad caawana waxaa dheeli doona Southampton oo martigelin doonta kooxda West Ham United waxaga hadii intaasi aan ciyaarihii uga gudubno imikana barnaamijkii baafinta maanta waxaa si wada jir ah stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Samiira Cabdullaahi Jaamac iyo Caasha Saciid Xasan. mahadsanid Samiira. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Aadan Bilaal Nuur oo degan Beledweyne waxa uu baafinayaa Shankaroon Aadan Bilaal waxa ugu wardambeysay 2011 haddaba haddii ayna maqlayso Shankaroon Aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Aadan Bilaal ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Beledweyne. Siyaad Yuusuf Mire Baardheere waxa uu baafinayaa Nafiso Yuusuf Mire waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Holland sanadii 2008 haddaba haddii ayna maqlayso Nafiso Yuusuf Mire ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Siyaad Yuusuf Mire iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama waa telefoonka nambarkiisu yahay 2526 ayaan Maxamed Cali oo joogto Baardheere waxay baafinaysaa Mursal Maxamed Cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Australia 2011 haddaba haddii uu maqlayo Mursal Maxamed Cali ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ayaan Maxamed Cali iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Beledweyne. Sahro Maxamed Cilmi oo joogta Baardheere waxa ay baafinaysaa Axmed Faarax Cilmi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2013 haddaba haddii uu maqlayo Axmed Faarax Cilmi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Sahro Maxamed Cilmi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2516 Umar Faarax Xasan oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Maxamed Faarax Xasan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Belgiumka 2014 haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Faarax Xasan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Umar Faarax Xasan ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere. Canab Cabdullaahi Xasan oo joogta Baardheere waxa ay baafinaysaa Xasan Cabdi Xasan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ireland haddaba haddii uu maqlayo Xasan Cabdi Xasan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Canab Cabdullaahi Xasan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 Xalimo Nuur Faarax oo joogta Baardheere waxay baafinaysaa Safiya Nuur Faarax waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Norway 2010 haddaba haddii ay maqlayso Safiya Nuur ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xalimo Nuur Faarax iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526 Luul Cilmi Aadan oo joogta Baardheere waxa ay baafinaysaa
cabdiweli cilmi aadan waxa ugu hor dambeysay isagoo ku sugan dalka Belgiumka sanadii 2009 haddaba haddii uu maqlayo cabdiweli cilmi aadan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo luul cilmi aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 226 hani maxamed baardheere waxay baafinaysaa cabdiwaaxid maxamed cali waxa ugu hor dambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2013 haddaba haddii uu maqlayo cabdiwaaxid maxamed cali ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo hani maxamed cali iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere khamud oo joogta baardheere waxa ay baafinaysaa Maryan Jaamac Maxamuud waxa ugu hor dambeysay iyadoo ku sugan dalka Norway sanadii 2014 haddaba haddii ay maqlayso Maryan Jaamac Maxamuud ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Khadra Jaamac Maxamuud iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 256 cabdiqaadir mayo cabdulaahi oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa hiba mayo cabdulaahi waxa ugu hor dambeysay iyadoo ku sugan dalka Jarmalka 2012 haddaba haddii ay maqlayso hiba mayo cabdulaahi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cabdiqaadir mayo cabdulaahi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere maxamed cali cismaan oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa shirwac khaliif barre waxa ugu hor dambeysay isagoo ku sugan dalka Suudaan sanadii 2014 haddaba haddii uu maqlayo shirwac khaliif barre ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo maxamed cali cismaan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 226 maxamed yuusuf ismaaciil oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa luul yuusuf ismaaciil waxa ugu hor dambeysay iyadoo ku sugan dalka Australia 2016 haddaba haddii ay maqlayso luul yuusuf ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo maxamed yuusuf iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere عمر علي عمر oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa luul cali cumar waxa ugu hor dambeysay iyadoo ku sugan dalka Canada sanadii 2014 haddaba haddii ay maqlayso luul cali cumar ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cumar cali cumar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 226 ruqya cabdulaahi xasan oo joogta baardheere waxay baafinaysaa xuseen cabdulaahi xasan waxa ugu hor dambeysay isagoo ku sugan dalka Sweden 2014 haddaba haddii uu maqlayo xuseen cabdulaahi xasan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo ruqya cabdulaahi xasan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 226 maxamed maxamuud xuseen oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa saciido maxamuud xuseen waxa ugu hor dambeysay iyadoo ku sugan dalka Norway sanadii 2006 haddaba haddii ay maqlayso saciido maxamuud xuseen ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo maxamed maxamuud xuseen iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 226 ladan gaaciye aadan oo joogta beled xaa waxay baafinaysaa axmed gaaciye aadan waxa ugu hor dambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen 2015 haddaba haddii uu maqlayo axmed gaaciye aadan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo ladan gaaciye aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere ama telefoonka lambarkiisu yahay 256 cabdulaahi axmed yuusuf oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa cawil axmed yuusuf waxa ugu hor dambeysay isagoo ku sugan dalka Pakistan sanadii 2012 haddaba haddii uu maqlayo cawil axmed yuusuf ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdulaahi axmed yuusuf iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 226 xasan nuur cali oo jooga beled xaawo waxa uu baafinayaa faysal nuur cali waxa ugu hor dambeysay isagoo ku sugan Kenya 2009 haddaba haddii uu maqlayo faysal nuur cali ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xasan nuur cali iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee beled xaawo ama telefoonka lambarkiisu yahay 226 maxamed aadan oo joogta baardheere waxa ay baafinaysaa aamina aadan cilmi waxa ugu hor dambeysay iyadoo ku sugan dalka Ingiriiska
sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlayso aamine aadan cilmi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nasteexa maxamed aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 3 cali khaliif xaraare oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa faarax xaraare aadan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Norway 2015 haddaba haddii uu maqlay faarax xaraare aadan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cali khaliif xaraare iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 2526 xaliimo cabdi mahad oo joogta baardheer waxa ay baafinaysaa sahra cabdi mahad waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2014 haddaba haddii ayna maqlayso sahra cabdi mahad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xaliimo cabdi mahad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 maxamuud cali maxamed oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa cali cabdulaahi maxamuud waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Holland 2016 haddaba haddii uu maqlay cali cabdulaahi maxamuud ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamuud cali maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere maxamed cabdulaahi daahir oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa maxamuud cabdulaahi daahir waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2006 haddaba haddii uu maqlayo maxamuud cabdulaahi daahir ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo maxamed cabdulaahi daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 cabdifataax xasan faarax oo jooga beled xaawo waxa uu baafinayaa farxaan xasan faarax waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Liibiya 2016 haddaba haddii uu maqlay farxaan xasan faarax ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdifataax xasan faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 2526 xuseen jaamac cali oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa axmed jaamac cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Faransa sanadii 2001 haddaba haddii uu maqlayo axmed jaamac cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xuseen jaamac cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 faadumo aadan ducaale oo joogta beled xaawo waxay baafinaysaa luul maxamed ducaale waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Canada 2014 haddaba haddii ayna maqlayso luul maxamed ducaale ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo faadumo aadan ducaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beled xaawo ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526 maxamed axmed xade oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa faadumo xade cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo xade cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed axmed xade iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 waliya cali mataan oo joogta magaalada Muqdisho waxay baafinaysaa wiilkeeda oo 8 sano jir ah Jaabir Ibrahim Khayr waxa ugu wardambeysay 25 Febraayo sanadkan haddaba haddii ay jirto cid aragtay fadlan waxaa si naxariis leh looga codsanayaa inay ku soo aadiyaan xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama telefoonka hooyo waliya cali mataan 2526 Amina Xasan Xuseen oo joogto Muqdisho waxa ay baafinaysaa wiilkeeda aadan siido da'diisu waa 8 jir waxaana ugu wardambeysay bishii labaad ee sanadlaaliyo cid aragtaa waxaa si naxariis leh looga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Muqdisho amaba telefoonka Amina Xasan Xuseen 2526 aan ku celiyo 2526 baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Zahra Cabdulla Cali oo joogta Beledweyne waxay baafinaysaa Cabdi Aadan Faarax waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Koonfurta Suudaan 2012 haddaba haddii uu maqlayo Cabdi Aadan Faarax ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Zahra Cabdulle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Beledweyne barnaamijka baafinta ayuu ahaa oo ay nala socodsiinayeen Caasho iyo Samiiro barnaamijkaasi ayaana u dambeeyay idaacaddii duhurnimo intii ay seegtay
qodobada aad idaacada ku maqasheen iyo qodobo kaleba waxa aad ka heli kartaan barta internetka aan ku leenahay ee bbcsomali.com halkaasi oo sidoo kale aad ka heli kartaan qodobo kale oo aad u xiiso badan inta 5 galabnimo laga gaariyo wax Axmed Badar oo idinkaga tagay sida iyo nabadgelyo